barnaamijkan ayaa waxaa fulinaysa dowladda federaalka Soomaaliya iyadoo ay maalgelinayso hay'adda horumarinta caalamiga u qaabilsan Mareykanka USAID oo bixinaysa 1.6 milyan oo dollarka Mareykanka isla markaana ay ka qayb qaadanayaan qaar ka mid ah shirkadaha ganacsiga dalka. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa furay mashruucan lagu maalgelinayo qayb ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee leh hal-abuurka ganacsi taa oo qayb ka qaadanaysa horumarinta dhaqaalaha dalka waxaana ka qayb galay wasiirro ka tirsan xukuumadda iyo qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed oo ka kala yimid gobollada dalka. faa'iidooyinka gaarka ah ee mashruucani dalka iyo dhalinyarada u leeyahay waxaan isleeyahay waxaa ka mid ah kobcinta dhaqaalaha dalka, kobcinta dhaqaalaha qoyska, barashada xirfado iyo shaqo abuur, ka mashquulinta dhalinyarada dembiyada iyo xagjirnimada, ujihaynta dhalinyarada mustaqbal ifaya, madax bannaani iyo isku filnaansho nololeed iyo abuurid ururo ganacsi iyo iskaashatooyin. sidaas daraaddeed maantay waxaan aaminsanahay inay tahay maalin ka tilmaaman maalmihii aan soo marnay, waayo waxaa joogta ganacsato Soomaaliyeed oo isu soo xilqaamay inay rajo geliyaan dhalinyaradooda, maalgeliyaan dhalinyaradaas. barnaamijkan ayaa wajigiisa koowaad lagu maalgelinayaa 340 dhalinyaro ah oo ka kala yimid dhammaan gobollada dalka iyadoo lagu maalgelinayo hal-abuurka ganacsi sida beeraha, kalluumaysiga, tamarta, tiknoolajiyadda iyo qodobo kale taasoo ay baahi weyn u qabeen dhalinyarada Soomaaliyeed isla markaana qayb ka ah qorshaha xukuumadda ee shaqo abuurka dhalinyarada Soomaaliyeed. Waxa ugu horeysa ee barnaamijkan ka faa'iideysan doonta ay yihiin dad Soomaaliyeed oo matala dhammaan Soomaaliya oo dhan kana kala yimid gobollada Soomaaliyeed oo dhan. waxaa maanta barnaamijka lagu bilaabi doonaa wajigiisa koowaad 346 dhalinyaro ah oo ka kala yimid gobollo iyo degmooyin ay ka mid yihiin Afgooye, Baydhabo, Baraawe, Cadale, Beledweyne iyo Buurane, Jowhar iyo Warsheekh, Garowe, Qardho iyo Boosaaso, Dhuusamareeb iyo Gaalkacyo, Hobyo iyo Gurceel, Kismaayo, Burco, Hargeysa iyo degmooyin ka mid ah gobolka Banaadir. mashruuc isu keenay Soomaali ka kala timid intaasoo gobol iyo degmo waxa uu astaan u yahay Soomaalinimo horumarka ka sokow. shaqo abuurka iyo kobcinta dhaqaalaha dalka oo furo ah horumar kasta oo dalkeenu hiigsanayo ayuu xusay Ra'iisul Wasaare Khayre in dalkeenu leeyahay rajo aad u sareysa isla markaana toddobaadyada soo socda laga cafilayo deymaha taasi oo fursad kale oo dhalinyarada Soomaaliyeed u abuuraysa shaqo. waxaan leenahay rajo waayo marka usbuucyada soo socda wajiga hore ee deyn cafiska la galo oo dalka wajigiisa koowaad oo deynta laga cafinayo ay soo xaqiiqowdo usbuucyada soo socda waxaa la heli doonaa fursado badan oo kobcin doona dhaqaalaha. abuuri doona shaqooyin wax ka bedeli doona adeegyada waxbarashada iyo caafimaadka, xoojin doona dowladnimada, unki doona fursado ay dunidu dalkeenna ku maalgashato, ganacsataduna uga faa'iidaystaan, noo sahli doona dib u dhiska iyo midaynta dalkeenna. waxaan leenahay rajo waayo waxa wax iska bedeleen dhaqankii dowladnimo oo ugu yaraan aad ogtihiin in qof waliba oo u shaqeeya dowladda uu helo mushaarkiisa laga soo bilaabo 1 Janaayo 2017 bil walba marka ay dhamaato 30keeda.
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo khudbadiisa inta badan diiradda ku saaray ahmiyadda iyo awoodda dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa tilmaamay in dhalinyarada looga baahan yahay inay hormuud u noqdaan isbeddelka dalkeenu ku gaarayo horumarka la hiigsanayo. waa inaad ogaataan dhalinyaro in leedin hanweyn yahay waayo nolosha iyo dawladnimadu waa qoro isu dhiib waxaa la doonayaa xilka iyo xoolaha ummadda Soomaaliyeed in idinka leedinku soo wareejiyo la wareegidda awoodda dawladnimada iyo dalku macnaheedu ma ahan kaliya inaad siyaasi noqoto laakiin awoodda dhaqaalaha gudihiisa ayay ku jirtaa awooddu aqoonta ayay ku jirtaa awooddu hal abuurka ayay ku jirtaa awooddu abaabulkiina iyo isku duubnaantiina ayay ku jirtaa awooddu midnimadiina ayay ku jirtaa isbeddel guud oo aad idinku horseed u noqotaan oo dalka lagu sameeyo ayay awooddu ku jirtaa. dowladda Soomaaliya ayaa muhiimadda koowaad siinaysa awoodsiinta dhalinyarada iyo abuuradda fursado shaqo oo ku daboolan ama la xiriira baahidooda